tahay daawadayaal halkan aanu saaka ku sugannahay waa xafiiska qareen xabiib cabdullaahi ciise waa nin dhalinyaro ah wuxuu dhawaan ka soo hormuuqday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal isagoo u doodaya eedaysanayaal lagu soo eedeeyay inay geysteen kursigii iyo dilkii gaalkacyo ka dhacay 24 February sanadkii 2019 isla sanadkan Aisho Ilyas Aadan eedaysanayaasha ayaa sida aad warbaahinta kala socoteen waxay xukun dil ah ku riday maxkamadda darajada koowaad oo waxay saqaateen qareenadii u doodayay Xabiib iyo Mustafa Racfaan ay xukunka ka qaateen maxkamaddu ay u ogolaatay Xabiib ayaa saaka xafiiskiisa ku soo booqanay sababta kulanka Xabiib iyo bahda Dalmar Media isaga ayaa qareenka ayaa nooga faalloon doona kadib maadaama kadib codsi nooga yimid xaqiisa aanu halkan ku nimid hay ku soo dhawo qareen bismillaahir rahmaanir rahiim salatu wassalamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wa ma santihiin bahda Dalmar Media ajiibidii soo ajiibteen codsigayga ahayd inaan waxa way xafiiskayga soo booqataaniin ujeedada aan idinku yeerana waxay ahayd waxaan sidaan wada ogsoonahay maalmahan ku guda jirnay qadiyadii Aisho Ilyas Allah u naxariisto gaalkacyo lagu dilay laguna kursaday 24 bishii February waxaan ahaa qareenkii difaacayay dadkii saddex ka mid oo dhalinyaradii lagu soo eedeeyay inay falka ka dambeeyeen iyagu waxaan rabay marka maadaama horta waa Ilaahay mahadiis maadaama kiiskii ugu horeeyay oo noocaas ahaa ama case maxkamadaha Puntland baa andho ka socda laga daawado adduunka qaab live stream deetana ay ogaadaan dadku waxa ka socda maxkamadda iyo sida ay u shaqeyso iyo qaabka waxa way nidaamka garsoorka Puntland u shaqeeyo taasina waxa way mahadada iska leh koowaad Ilaahay midda labaadna waxa iska leh bulshada reer Puntland ee ugu horeysa saxaafaddu oo iyagu qayb weyn ka qaatay tabintii iyo daafurnaantii kiiskaasi ka socday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal iyaduna waxa way na tusinaysaa inaanu nahay maanta ama aan waxa way maqaamka aan ka joogno dunida nala oran karo wadamo horumaray oo naga waxa way waqti hore dunida ka tagay inaan waxa way la jaan qaadi karno qaabkooda garsoorka u shaqeeyo midda kale aan rabo aan dadweynaha inaan u sheego oo aan rabo inaan la wadaago waxa weeye waxaan rabaa inaan waxa weeye xogaa wax aan ka iftiimiyo sidii wax u socdeen iyo inaan waxa weeye sidoo kale wax ka iraahdo falcelintii dadweynuhu aan kala kulmay aniga ka qareen ahaan iyo falcelintii ay kala kulmay go'aankii ay soo saartay maxkamaddu taas weeye sababta aan ugu yeeray bahda Dalmar Media way hadaladii maalin ka hor aad ka jeedisay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal horteeda waxa kamid ahaa hebel adigu marka eedaysanayaasha u doodasay hebel waa playboy taas maxay ka dhigneed maluuqada hadalka qareenada qayb ka ahayd ma cadayn lagu difaacay eedaysanayaasha ay ahaayeen dadka maxaad uga sheegi kartaa abshiro horta arintaasi waxay ahayd kiisku markuu dhamaado go'aanka laga soo saaray wixii ka dambeeyay waxa jirtay clip hadalkaas marba waxa sirtay hadda Aisho cadaalad waa bahashay qofka victimka oo dhibanaha baraha bulshada kuwaana waa adiga taasna waxa keenay shakhsiyaad waxyaabahaas ka ganacsada oo hadal ay soo gooyeen wax yar ah difaacigu wuxuu ahaa mid waqti dheer ah almost wuxuu socday 2 saacadood imagine 2 saacadood idinka batibiyaba saafilayo wuu socday qadiyadu dhaxmeesh waxa weeye 2 saacadood waxa hadlayay oo marba isu jawaabayay dacwadoogaha ku-xigeenka dacwadoogaha Puntland iyo annaga oo ahaa defense lawyerkii difaacay eedaysanayaasha marka waxa jirtay waxa jira qodob qaanuuni oo ah 117 baan maleynayaa heerka habka waxa uu ku siinayaa fursad inaad qeexdid eedaysanaha dabeecadihiisa shakhsiyaadkiisa lifestyle-kiisa
everything aduu inaad ka qeexdid waa marka aysan jirin caddayn rasmi oo qofka lagu hayo but laakiin la rabo dadka daawanaya oo waxa weeye public hearingka jooga iyo garsoorka in qaab logic ah looga dhaadhiciyo qofkan maxaa ku kalifi kara inuu falkaa galo marka waxaan rabaa inaan si fiican u jilciyo intaana ereyga oran baa waxa weeye dacwad oogu wuxuu yiri asagoo sifaynaya sida anigu aan ha u difaacayo kaleeto wuxuu sifo negative waxa weeye ku sifaynaya eedaysanihii anigu wakiilka u ahaa waa nin xun waa nin noocaasa waa nin bahalkiya isla anigu hadalka ugu dambeeyo oo difaacay isla markaana waxa weeye soo cuskaday qodobkaas baan waxaan bixiyay qeexitaan dheer oo waxa weeye aan ku qeexayay Cabdi Fataax waayo Cabdi Fataax waa qof caynkeeya maxaa ka suurtooba muxuu haystay fursadaha u bannaan maxay ahaayeen marka la yiraahdo playboy waxaan u isticmaalaa inta badan ninka haasawiisu badan yahay marka waxaan rabay inaan u sheego garsoorka iyo maxkamadda horteeda Cabdi Fataax maadaama uu yahay nin haasawo badan oo dumar badan ay ku xeernaayeen baahi intee leeg buu u qabi karaa inuu kursi geysto oo sababi kara in waxa weeye kursigaasi asaga lagu dilo dadka ay ku cusbeen waa wiil cas oo qurux badan marka taasi difaac cad ma way u ahaydo difaac cad bay u ahaydo markaad arinta fiiriso dhanka logiga waaba idin sharaxay waxaan ku iri maxay tahay waxa ku kalifi kara maadaama uu yahay ninkaasi in Allah la yastaxyi an alhaq wa ilaahi ninkani wuxuu ahaa baan sheegay waxaan sheegay family ahaan wuxuu ka soo jeeday waxaan sheegay qaabka uu ahaa dabeecadihiisa iyo fursadda uu haystay wala si sheegi doontaa hadii racfaan si socdo wala si sheegi doonaa mar walba waa difaac cad weeyo waayo ninkan caddayn lagu hayay ma jirin markaas inuu falka geystay but laakiin waxa jirtay in laftirkeeda uu isweydiiyo garsooruhu iyo dadweynuhuba markuu saa u fiiriyo ninkan qiyaas intee leeg boqolkiiba intee buu sameyn karaa inuu gabar yar kufsado oo dariskooda waayo waa nin marka anagu waxaan cadaynay haasawaha uu sameyn jiray gabdhihii saaxiibada la ahaa telefoonadoodii WhatsApp-kii isticmaalayeen codadkii everything waxa way waan keenay maxkamadda waan cadaynay marka ma jirin sabab ku kalifi karta inuu gabar yar kufsado waayo uu haystay gabdho oo xariir la lahaa oo mid iyo laba iyo saddex toona baan ahayn waxa jira warar suuqa maraya ama dadku sheegayaan qaybtood kuwaas oo la xiriira qareemo badan kiiskan aan hadda gacanta ku haysan inay diideen inay galaan markay arintaasi maxaa ka jira idinku dadku ma ugu warbixin karaan sidaad ku soo gashay kiiskan abshiro waxaan horta anigu ma maqal qareen baa diiday waxaan aaminsanahay kiiskan horta kiis wuxuu ahaa nihow anaga intaan ka jawaabin waxa jirta dhibaato xagga naga haysta laftirkeena environment-geena oo ah maadaama dadkan waxay ku barteen kulliyadda qaanuunka dalka gudihiisa ma jirin qareemada hadda ku shaqeeya duruufaha adag ee ka jira wadanka ay laftirkooda ma haysaanin qareenku qaabka uu shaqeeyo fikrad badan dadkan waxay way barteen way practice galeen laakiin waxay la falgaleen duruuftii wadanka marka waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inuu yiraahdo nin xarinta qaranka ma gali karo laakiin gabi ahaanba waa mamnuuc qaranku waa tool every case uu xaq u leeyahay inuu galo case-kan iska badaa inuu qof diide waxa way anu waxaan u arkay ninkii qarankii ama waxa way gariiqaanka xafiiskiisa inta la soo galo yiraahdo case-ka noocaasa baan rabnaa inaad qayb ka ahaatid oo difaacdid inay ahayd fursad qaaliyo haddii ay jirto marka inuu waxa way qof loo geeyana ay tahay fursad uu lumiyay waayo qofku xitaa waxaan rabaa inaan u sheego qareemada laftirkooda qofka garsoorka maadaama uu nidaam alqataaga xataa xagga diiniga wuxuu yiraahdaa waa shakhs dubixa biqayri sakiin waxa way mid la'aan inta la qowracay bulshada lagu sii daayay maaha qof sumcad leh sumcadda iyo sharafta waxaad uga soo tagaysaa gurigaaga waayo qof baa qareen baa tahay daraf baa ka soo horjeeda darafkana difaacaysa kan ka soo horjeeda wuxuu u arkaa mar hore inaad waxa weyba tuug tahay waxa way ii sheegay xaqiisa doodsiinaysa
marka there is no way aad waxaad tiraahdeed anigoo sharafkayga ilaalinaya ama sumcadayda iyo qarankiisu ma galaanin waxayse soo gala maaha. dad badan baa waxay aaminsan yihiin bil Ramadaan in lagu jiro sidaa darteed maalinta dhaweyd doodiina ay waxyaabo badan aydan kaga run sheegeen mararka qaar waxay ku leeyihiin dadku lacag baa ka hadlinaysa odayaasha markay kiiskan hadda gacantaad ku haysaan sidii aad maxkamadda ka hor sheegteen in aysan dambi u lahayn eedaysanayaasha aad u doodasaan ma qabtaa bal faahfaahin naga sii waxaan rabaa abshir horta waxaan kuu sheegayaa etikiska qaranku maba ku jirto inaad been sheegtid inaad been ku doodid ma ku jirtid waxa weeye haddaad been waa laga yaabaa bini aadan baan nahay been waxa weeye sometimes way imaan kartaa wax beenta mar baa la baneeyaa marka naf lagu badbaadinayo sama garan taa macnaheedu ma hadda anigu inaan been ka sheegayay maxkamadda wax walba horkeena waxay ahayd articulated wax qodobaysan iyo documenti maxkamad horteed looga dhaartay looga saxiixay wax qodobo oo ah legal defenses difaac qaanuuni ah baan adeegsanayay waana wax anagu aan dhiganay oo ku heshiinay ma jira laakiin wax fabricated oo la soo buunbuuniyay sida xafiiska xiraalinta waxa way ay adeegsanayeen anigu wax gacan ku samaysan ma aanan keenin documenti kasta aan keenay wuxuu ahaa mid xafiis ka soo baxay iyo mid maxkamad ka soo baxay arinta kale to waxa way dadku wax laga yaabaa inay qaataan inaan lacag qaadanay wata qaranka xushmad baa leeyahay xushmadda qaranku waa waajib hadii waxa way lagu kureysto lacag la'aan ku shaqeynaysid waliba waxa la qaataa lacagta ugu badan oo waxa way qof bini aadan ku shaqeeyo waxa way aanu malanayaa second highest page shaqada ugu labaad waxa way lacag lagu qaato mushaar aan si dhameeyo marka waxaan rabaa inaan dadka la wadaago haddii aan xataa even lacag ku shaqeeyo daamicneedu ma lacagtayda aan qaatin xaaraan ahayd anigu waxa way statementiga aan ka qorno clientiga oo noogu dhaarto baan ku difaacnaa hadduu wax qariyo asaga ilaahiis wey su'aalaha qaybta kale waxaan weydiin doonaa saaxiibka Mustafa oo isaguna kiiska kula jira waxaan jeclaa adiga inaan ku weydiiyo waxa tahay nin dhalinyaro dad badan aad bay u soo jeedata habka doodaadii marka waxa la isweydiinayaa wiilkan dhalinyarada ma ardayda gudaha waddanka wax ku bartay uu kamid ahaa mise kuwii meelaha ka soo laabtay bal dadka ugu warbixi waxbarashadaada iyo goobtaad ku soo biirtay dadka horta waxaan rabaa dadweynaha inaan la wadaago laftirkooda waxaan jirtay reactionkii dadweynaha falcelintooda waxaan ka arkay aniga laftirkayga xataa dadku inaan ku mashquulsan yahay xilligan shaqada bilaabay marka taas laftirkeeda waan iftiimin doonaa horta anigu waxaan arday ka baxay dugsiga sare Xamdaan bin Rashid sanadkii 2008 2013 waxaan ka baxay kulliyadda qaanuunka xagee Boosaaso kulliyadda qaanuunka waxaan ka baxay 2009 BSU xilliga waxa ka dambeeyay waxa ka shaqo bilaabay markaasi xafiiskii qaanuun ugu horeeyo waxa way lawyer madax bannaan oo laga sameeyay Garowe marka laga tago dadkii ka soo baxay kulliyadda Asar jaamacadda Al-Azhar oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo nin kale oo ay isku facyihiin laakiin jiilkayga marka loo fiiriyo waxaan isdii karaa waxa tahay qofkii ugu horeeyay inta boor degsado yiraahdo waxa way boorka xafiiskaas waxa iska leh lawyer madax bannaan isla markaana ka difaaca dadka maxkamadda horteeda maclasaf xilligaas ma aysan jirin fursadaha nadan aan haysano meediyaha oo hadda waxa waaye iyadoo ilaa maadaama ay tahay most powerful toolka kaliya hadda la isticmaalo anigu xilligaas shaqada bilaabay waliba shaqada waxaan ka bilaabay cases ciqaaba waxaan baysuarka marka inaan ahay anigu waxa weeye qareen waxa weeye penal caseska inta badan experience waa aqoon u leh xilligaas 2013 wixii ka dambeeyay ilaa 15kii miyaan dhihi karaa may 14kii dhamaadkiisa adiga muddo hal sano iyo dheeraad ah baan ku shaqeynay xirfadan inta ka bacdi waxaan aaday dalka dibadiisa waxaan raadsaday master of law inaan soo sameeyo iyadoo ay u kalaftay waliba inta badan anigu markaas waxaan buu arkay fursad joogitaanka Garowe markaas joogan ku shaqeynay laakiin waalidkii wuxuu pressure iga yiri waxa way kuguma filna taajku marka waa inaan sameeysaa master ma hada ka gaarto waamiliga taladoodii baan yeelay waxaan aaday dalka dibadiisa waxaan ku bilaabay safarkaygii
meeshan East Africa dalalkan Kenya iyo meesha la Uganda ka bacdina waxaan fursad u helay sidoo kale scholarship waxa weeye West Bengal markaas ka bacdi baan waxaan soo qaatay master degree waan soo laabtay xasidii baan marka waxa weeye waxaan ku soo laabtay xafiiskii aan 5 sano ka hor albaabada u furay oo shaqeynaya oo qareerna kale ka shaqeynayaan sifa way daawadayaal sidaad u jeedaan arrin kale rabaa inaan kale u sheego oo siinaya sidaad u jeedaan waa abukaata Xabiib oo aan xafiiskiisa ku booqanay maanta abukaata Xabiib dadkan kala socdo social media ama playboy abukaata playboy ma baahan kugu naanaysiin maxaa fariin noo farlay horta waxaan rabaa inaan dadweynaha fariin gaarsiiyo message-kaas laba waxaan doonaa mid waxaan soo gaarsiin doonaa Dalmar Media midna waxa weeye bartayda baan soo dhigi doonaa insha Allah waa message idin gaara message-kan marka waxa waaye horta aniga sida aan ogsoon tihiin waxaan ahaa raakii difaacay eedeysanayaashii lagu soo eedeeyay inay geysteen falkii faasho xumaa ee marxuumad Caaisha Ilyas ee ka dhacay gaalkacyo Allah naxariiso qaangaar ma ahayn laakiin naxariiso qof kasta u baahan waxaan rabaa marka dadkeena dadka Soomaaliyeed beenaan u sheego aniga waxaan horta lawyer garsoore mi oo go'aan ma soo saaro aniga xafiis baa ii furan gaar ahaan waxaan rabaa inaan u sheego dumarka Soomaaliyeed oo iyagu qadiyadan gabi ahaanba dhinac ka istaagay falcelinta ugu badneed ee negative-ka aan kala kulmay waxay ahayd dumarka iyo dhalinyarada intooda yar oo waxa weeye jiilka dambe aniga markaan leeyahay qareen baan ahay qareenku waxa weeye waa toolka dadka gabarada wata isticmaalaa garanaya baanad iyo dismiss iyo wax inta waa laga helaa anigu marka go'aan aan leeyahay ma jiro marka waxa jirta markaan maxkamadda joogo waxa mas'uuliyad horta gabi ahaantii naga saaran tahay eedeysanayaashu ma yihiin kuwa xaq u leh in la difaaco dastuurka anagu aan dhiganay baa wuxuu dhigayaa eedeysanuhu inuu xaq u leeyahay inuu helo difaac qaanuuniya iska daa wax kale qofka toogashada xataa loo wado waxa loo sameeyaa maalinta la tooganayo dhar cusub baa loo gadaa perfume iyo wax uu isticmaalaa salaad inuu tukado loo ogolaadaa hada hiya cadaalad waa qayb kamid cadaaladda asagoo waxa weeye nuuraya xaq laga rogaa qofku eedeysana marka lagu yiraahdo waxaan aniga ka qaran ahaan inaan fahantaan isku daydaan anagu waxaan qayb ka nahay helista iyo ka gungaarista cadaaladda sidaan ogsoonahay naguma horeyso qof inta la soo qabto tuhun lagu soo qabto xitaa in lagu toogto asagoo aan dambigiisa la cadeyn imisa waxa weeye halaag iyo dhibaato intee la egmeen kala kulmi karna dadkeena ifka saaran ee nool haddaynan ku dadaalin oo inaan garsoorka dadweynaha waxaan u sheegayaa keiska Caaisho inkastoo sensitive ah kuwa ka falxun baan soo galan idinaan ogeyn oo waxa weeye moraalka xataa dadka wax u dhimayay oo aan maxkamadda xataa loo ogolayn qof soo galo ma garad fursad u leeyahay maxkamadda waxyaabaha ka socda oo waxyaabo aan la kala xishoon oo waxyaabo runta laga sheego oo xaqiiqada laga sheego marka tii hadda daafurnaantii hadda waxa weeye aad ku daawanayseen social media iyo telefishinada ka daawanayseen ayada laftirkeedu waxay fursad u ahayd qofka la dulmiyo iyo kan dulmiya iyo midkeena ka damqanaya iyo sida uu shaqeeyo criminal justice system ama due process waxay dhaaf qalad ku dhahan in uu qof walba ogaan doono ama ogaadaba in laga dhageysan doono meesha maxkamadda horteeda waxay hadii uu la dulmiyay iyo hadii uu wax dulmiyay iyo hadii aan nahay dadka iyagoo dhageysanayo ka damqanayaba taasi waa mid waxayna ahayd marka xilligii ugu horeeyay ee case noocaasa laga tabiyo qaab live streamer dadkii ayagoon u bislayn nidaamkii garsoorka soo u shaqeynayay qareenku soo u shaqeynayay qaadiga xafiiska xeeraalinta wixii say u shaqeynayeen waxayba iska istaageen markay arkeen waxa weeye dadkii loo haystay qadiyadan oo la difaacayo ma fadhici karto bay ku leeyihiin
soo u difaaci kartaa inta tooska sidee kula muuqatay ka qareen aniga ka qareen ahaan horta arrin iyo aad arrin waxay ila muuqataa arrintaasi arrin fursadan soo martay bay ila muuqataa waxaan ku boorinayaa meediyaha iyo garsoorkaba in wax walba oo maxkamadda ka socda si dadweynuhuna ula socdaaniin sida uu shaqeeyo garsoorka Puntland in la tabiyo ama documentary laga sameeyo ay yeeshaaniin xafiisyada qareenada iyo xafiiska xeeralinta iyo kuwa garsoorkuba page ama meelo waxa weeye u gaar ah oo lagala socdo waxa weeye waxa shaqada ay u hayaanin bulshada marka waxaan kala rabaa inaan u sheego haweenka Soomaaliyeed anu waxaan ahay horta marka laga yimaado shaqada aan hayo aan ka hayo maxkamadda horteeda waxa ay saaran waajibaad sida uu waajibaadku u saaran yahay askariga ilaalinaya dalka sida uu u saaran yahay pilotka waxa way diyaaradda kaliya kama saarnay waxa waajibaad ka saaran yahay dadka saaran waxa la mid ahay dhakhtarka asagu qalliinka sameynaya oo waxa way waajibaad ka saaran yahay badbaadinta naftaasi waxa way waxa inagoo dhan waajibaad naga saaran yahay badbaadinta iyo helista cadaaladda qof asagu dambi aanu galin la yiri waa gashay si aan u xaqiijin inaan dambiga galin waxaan rabnaa inaan waxa weeye aan maxkamadda horteeda ka sheegno kana difaacna dhahna qofkaasi dambiga ma galin sababtoo u galina waa sidan iyo sidan cadeymaheedina aan horkeena maxkamadda sidii haddaba aan sameynay ma garateen marka waxaan rabaa inaan iraahdo dadweynaha u sheego noloshayda gaarka ah iyo meesha humanity aan ka gaarsiisanahay way ka duwan tahay marka aan maxkamadda hortaaganahay waxaan ahay qof waxa waaye waajibaadkiisa gudanayay laakiin nolosha gaarka waxaan ahay qof waxa waaye naxariis badan ilaahay baa naxariis leh ka damqaday oo ka xumaaday falkii loo geystay Caaisho eheladeedina ah mid ka tacsiyenaya dibkaasi soo gaaray waayo aniga aabe ah gabar baan dhalay waan ka damqanayaa markaan ka soo baxo waxa weeye jalsada meesha ka socoto qadiyadu dadkan la mid ahay ra'yigay ka qabaan baan ka qabaa wax yar baan raabshiro inaan ku diraado raaliya hal mid baan waxaan rabaa inaan iraahdo laftikayga dhalinyarada aad ka u isticmaala baraha bulshada aniga way dhaliili kartaan waana iga fikir duwanaan kartaan ceeb ma waxa weeye waa kuwiina fariimaha qalafsan oo xanafta la soo dira iyo kuwiina waxa weeye kuwa positive ka soo diraba waxaan rabaa message-kan inaan gaarsiiyo dhalinyarada social media isticmaasha warmayaho rag iyo dumarba wixii dhaliila waxa weeye xor baa u tiin feel free laakiin waxaan rabaa inaad ka waantoodaanin aniga qoyskayga xaaskayga waxa weeye waxyaabaha meel ka dhaca ku qofka maarag oo sawirada aad isticmaalaysaaniin gabadha guriga ay joogto waa innocent waxba hawsha kuma laha tabtaas Caaisho suuqa lagu difaaciyo gurigayga laga difaaca gurigayga markaan tago waxaan ugu tagaa Caaisho maxaa saas u yeeshay maxaa saasa markaas xaafadda waxaan sheegay waxaan iraahdaa war Caaisho anagoo dhan waynaga maqan tahay caqabadan guriga social media aad wax way waxyaabaha aad iga dhaliilaysan inta in la ka badanba gurigayga iyo gabadhaydu waa iga dhaliilaa marka please waxaan rabaa inaad joojisaaniin sawirada isticmaalaysaaniin hadallada xanafta leh oo macnaha waxa weeye qoyska iyo waxa weeye qofka qiyamkiisa meel uga dhacaya laakiin qadiyadan wixii aad ka qabtaaniin iyo qareenkii difaacayay playboygii waxaas oo dhan xor baa u tihiin soo ma garan ma jiraan maadaama aad ka sharqamsay in aad weerar uu kaaga imaanaya xagga bulshada gaar ahaan dhalinyarada xiriiro toos oo lagu soo sameeyay taliyantii maxkamadda aad ka soo noqotay xiriiradu waa labo xiriir waxa sheegaysaa dalabaad oo dad mas'uul bulshada ma xiriir la xiriira in adiga toos lagu aflagaadeynayo lagu hanjabayo ma taasi waa ma ku soo daray weeyo harbay yeelatay laakiin aniga waan ogaa before aan kiiska gelin waayo anigu nin wadanka dawladda wax ku soo bartay wax badan ka fahansan waa qadiyadan moogta حتى waxaan sheegay dadka niyo horta dadka inna waxay ii soo daryaaniin fariimo positive ah oo ah wixii aan qabtay inay ahaayeen waajib aniga isaaran oo ah in xaq u lahaa eedeysan difaaci waxna waxay ahaayeen wax fariimaha ah xanafta leh oo negative ka oo flagaadada leh oo ayda leh oo waxba aan la lahayn boqolkiiba 90 waxa badan negative ka badan boqolkiiba 90 tobanka soo haray waa dad wax bartay
niyo waxaa jirta midda kale wax rabaa inaan u sheego dumarka meel kasta joogaan qaar xataa waxa jira sharci yaqaana I don't know qaar badan oo sharci yaqaana oo qadiyadan xataa aniga xagayga waxa weeye ka safnaa oo qareenku inuu waxa weeye eedaysanaha inuu difaac xaq u leeyahay jira qaar badan oo negative ahna way jireen marka waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan u sheego xafiiskayga aniga u furan yahay manaha intan fiiriye baan yaabay boqolkiiba boqol hal dhinac ka istaageen waxa iga dareed dhalinyaro yaryar oo qurbaha joogta qaar baa waxay sameeyeen profilkayga galeen borto wax sawiraan inta kala soo baxeen kuwa aan leeyahay kuwa arooskayga iyo kuwa gabadhii qaar waxay leeyihiin ninkan hal report garay ma garan karo sababta kale in la yiraahdo hal report garay marka waxa kaaga daran dadka sida xadaafka iyo Facebook account-kaaga soo codsanayaan waad fiirinaysaa qof kamid ah dad isku dayday inaad aqbashid message baa ka soo horeeya message-ka ugu horeeya uu ku soo dirayo waa negative markaas aad leedahay war dadkan maxaa qaldan dadku guddiga juhala ma wada ahay qaar ba filmaanta xitaa daawan jiray ma ogta wax isbedel miyuu kugu yimi marna oo maadaama aad hal mar diyaan la kulantay sidaad sheegayso oo maya anigu markii hore ma aragtay waxa la intaadan gartigin intaadan geetigin ba gartaada si noqda ma baxso xitaa anigu gabadheeda ma aragtay hadiyadan markaan qaabkaan ugu sheekay waxaan ku yiri waxay jiri doontaa arrin baa rabaa inaan sameeyo case ma rabaa inaan galo laakiin dadku dhan way ka soo horjeesanayaan waa ogaa adu markuu waxaan rabaa inay la jirtid baan ku yiri marka iyadu ma fahansaneen si aan hadhow guriga wala kulmin wax weeye hadda markay wax way tiraado saasiisa sootaan tiraado waa ku sheegay maalin wax xustaan ku afafar laho ama waxa weeye adkaysi dama laho miyaan ku sheegin koran dadku dhan way ka soo horjeesanayaan dadku kulanta sida ay loo faahfaahiyay marka kiisas adag galaysan qareenku inuu khatar badan la kulmi karo sida hadda ma waa la kulmaa qareenku waa la kulmaa dadku si ma fahansana sababtoo haday fahmi lahaayeen dadku boqolkiiba 99 ama 90 baando qadiyada hal dhinac kama istaageen war Aisha way naga baxday Allah u naxariisto laakiin waxa jira nidaamka qadaaga wuxuu leeyahay qaadigu qofka in la dilo garsooro xitaa inta inagu inuu raadiyo cudurdaar naf bini'aadan in ciyaar lagu gooyo qof kasta oo aanu aragno inuu waxay laga gardaran yahay qof walba oo waxweeye oo rag iyo dumar mid ku raba ahaado waxa aan xaq u leeyahay inaan wada shaqeyno wuxuu xaq u leeyahay inaan ka difaaco maxkamadda horteeda si sharciya waxa weeye laakiin waxa isku daydaanin inaan fahanno wax sida aan qareenku u shaqeeyo inay tahay qareenku mid mar walba cadaaladda si loo heli lahaa ka shaqeeyo oo qaybka ah bad uusan ahayn in qof kale xaqiisa doodsiinaya ama raba inuu wax weey sida hadda aniga haysato kale inay arkaan bulshadu inaan ahaanin Aisha doodsiinay oo waxa weey ka soo horjeeday Aisha inay waxa weey xaq weydo bal waxa rabay anigu dadkii Aisha falka fooshaxan u geystay in cadaaladda la hor keeno oo waajibka ay lahaayeen la marsiiyo waliba si xanuun badan loo marsiiyo laakiin waa inaan xaqiijinaa ma aaminsantahay kuwa kiiskooda aad gacanta ku hayso inay yihiin dadka dadweyne maya anigu ma aaminsanayn go'aankan garsooraha iskale maxkamadda waxay xukumi kartaa way sii day kartaa waxa weeye sababtaan u aaminsanayn waxa weeye anigu waxaan ahay defense lawyerkii difaacayay iyaga xaqiiqada aan ka hayo baaritaanka aan sameeyay cadeymaha aan hayno gidigoodu waa kuwa waqti ku tusinaya inaysan falkan gelin waxaan hayno maxkamaddu marka hadaysan anaga waxay tibaarin difaacayagii iyo cadeymahaygii mid baan rabaa dadweynaha u sheego maxkamaddu horta iyada garsoora defense lawyerka iyo xiraalintaba labadii way dhageysataa ijtihaadkadan iyaga iska leh inta naga dhageysato anaga waxa laga yaabaa midkiyaba inaysan qaadanba warkiisa bal iyadu ay meesha ka tagto oo la yiraahdo garmaqalkan waa isku soo laabanaya ay dadaal dheeraad gasho baxsi gasho ay raadiso xaqiiqadu waxay tahay labada iyadu professional baan waa shaqaysanayna qof walba wuxuu rabaa kiiskan inuu ku guuleysto waa u jeedaa hada xafiiska xilaalinta aad baa lagu hambalyeynaya
naa'ibul caam wax inuu eedeeyo maahan wax ma difaaco sida banaanba inuu wax eedeeyo maahane wax ma difaaco laakiin difaaciya ma garatay bad anagu waxaan nahay difaacayaal qof kasta oo dambi ku soo eedeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax difaaco marka hadda waxaad u jeedaa qofkii wax eedeynayay baa hadda guuleystay marka inuu wax eedeeyo xaq eedu waa inay ahaataa eed sharciya oo xaqiiqooyin leh marka shaqo fiican buu hayaa way qofka dambiilaha oo dambiga galay isaga ku soo eedeeyay laakiin wax la yimaado cadeymaha marka cadeymaha la yimaado xitaa looyarka uslaftigiisu wax la yimaanaya cadeymo loojiga wuuna ku guuleystaa xariirinta inta badan looyarku ku guuleysaa waxaan aad u jeedaan in wax kiisas oo galalkaas aad u jeedaan wax badan oo kamid ah waa lagu guuleystay qaar badan oo ku jirana laguma guuleysan marka waxaan u sheegayaa dadweynaha annaga iyo ayagu xariirinta labadayaduba shaqaan wahaynaa dadweynaha midkaya waxa waaye shaqo anigu ma yihi qofaan dadweynaha shaqo wahayn idinkoo dhan shaqaan idin hayaa sida fursada uu hayso xafiiska xiraalinta kaleeto xafiis dawliya oo amnigiisa la damaanad qaaday ma nihin duruufo adag baan ku shaqaynaa annagoo og waxa aan kala kulmayno bata haddana waxaan ka daalayna u shaqaynta bulshada annagoo rabnay inaan u hurno naf iyo waqti iyo aqoonba ma jirto aniga hadda saacadan cid aniga ilaalisa hub aan qaatana ma jirto laakiin dadku way ii soo jeedinayaan mar walba inaan waxa weeye xooga saaro inaan amnigayga ka fikiro nasiib wanaag horta waxa weeye saacadayda ma dhaafiyo laakiin garowna oo inta badan ah magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga badan oo ku noolahay waxaa jirta qadiyadan awgeeda mar aan u aaday gaalkacyo intaan gaalkacyo tegin gaalkacyo meel iska halisa damaanad qaad amni baan codsaday waxa weeye waxaan ka codsaday ehelkii aan wakiilka u ahaa ma sha Allah waxa weeye si wanaagsan bay amnigeena u sugeen oo uga fikireen hotelkii aan deganeen anaga shakhsiyadeedii gawaarideedii qalabkayagii muddada aan joognay laakiin garow markaan nimi waxaan baahi noocaas uma qabin amniga xageeda laakiin hadda kadib ka fikiraysaa ma hadda kadib ka fikiraya insha Allah markaan arkay falcelinta dadweynaha حتى هذا أنا أحوي وحلقية بابوك كب حتى قبله هدي وحوي أنت بدو dadku waxay adan warbaahinta ka mid ah waaran warbaahintu waa cid oo halista ugu badan in lagu sii shaqeeyo sidaan waa shaqada marka looga baaqsan amnigu say iska imaanay kulata absolutely waxa weeye muhiimadu waxa weeye annaga inay naga go'an tahay aan ognahay warbaahintu wariyaashu shaqada ugu badan oo halista ayaga qabto oo furinta dagaalka dadka wax ka soo tabiyo waa wariyaal maranku ma tago meel dagaal ka socdo xabada ka dhacayso cid kale oo tagta oo ugu geesisan wariyaal kiisaska musuqmaasuqa oo la xiriira madaxda cid ugu badan oo loo hanjabo ayaga laftirkooda saxaafadu waxay la kulmaaneen tacadiyo badan u maleymay hata saxaafadu laftirkeeda waxa rabaa inaan u sheego xaq wuxuu leeyahay qaran qabsadaniin urur baa jira inuu qaran u qabto maalin walba wariyaal xiriyaal jirdilayaa maqasha mana jiro wax way legal defense loo sameeyo legal service-ka waxa rabaa inaan kula taliyo ururka ay ku midaysan saxaafada Puntland inay leeyihiin waxa weeye legal service oo gaara wariyaasha ilaaliya xaqooda soo dhiciya waaba daruuri idinku waxa qalada kaliya ugu badan u baahan baatiin sababtoo ah cidaad waxa weeye ka soo horjeedaanin ama waxa weeye warka ka soo tabinaysan bulshadaad ka socotaan wakiil u tihiin waxa weeye wax xukuumadii iyo baarlamaankii iyo garsoorkii intaba waxa weeye waxa ay sameeyaan qaabka u shaqeeyaan cidda ka waxa weeye nooga soo gudbisa waa idinka muqulata dhalinyaradiina hadda wadanka wax u soo bartay oo qareemada u ah habkii hore ee sharciga ku shaqeynayay inaad isbedel ku sameeysaa wallahi taasini waa abshiro waxay ku xiran tahay madaxdeenu waxay ku xiran tahay waxa jira sanad walba arday qaanuunka baratay baa wadanka ka qalan jabisa hadaad fiirisid maxkamadaheena dadka jooga oo garsoorka iyo waxa weeye ka shaqeeya uma badna dad isku laflooba waa dad la yiri siyaabo kala gedisan lagu soo xulay laga yaabay dadaalkeedii adigu maxkamadda horteeda may annaga ka Soomaaliyaba waxa jira saddex hay'adood Soomaalidu leedahay oo ah hay'adda garsoorka fulinta iyo baarlamaanka laba ka shaqeeya meel walba ay ku dhacay Soomaaliya ku dayacan tahay Puntland ay ku dayacan tahay garsoor waa hay'adda kaliya ee loo baahnaa inay waxa weeye waxan dhacaya
dib loo dhowraaday sidan waxay ka bedeli doontaa soo way ka bedeli doontaa waxaan ka rajo ka qabaa dadkan haddii la geeyo meelaha sida xiraalinta iyo hanti dhowrka guud iyo waxa weeye ardayda wax soo baratay qaanuunka wax ka soo baratay way ma aynaan arag la xisaabtan ku salaysan hufnaan oo ah xitaa qof lagu soo eedeeyo musuq maxkamadda in la horkeeno ayaan daro sida u shaqeeyaan hay'adaha noocaas in qof la soo eedeeyo dil lagu xukumaa waa simple laakiin in qof la soo eedeeyo oo corruption lagu soo eedeeyo nin mas'uul xafiis leh wali ma dhicin aan waa kala garan waayo xitaa 3 bilood dil lagu xukumo qofna in la xukumo hal maalin lagu xukumo dil lagu xukumo qadiyad yar waan arkay maxkamadda ka dhacay waraysigan aadka u dheer waxaan la yeelanay xabiib cabdullaahi ciise oo dalmar media ay ku booqatay xafiiskiisa ku yaala magaalada Garowe aad baa u mahadsantahay abshir waxa weeye